السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة وأخواتي waxaan 2 daqiiqo ka qaadan doonaa insha allahu tacaala inta ilaahay naga waafajiyo habka ugu fudud ee qur-aanka lagu xifdi karo. Qur-aanka walaalayaal 4 qaybood ayaan u kala qaadaynaa, 4 martabadood. Qofku hadduu xoogga saaro inuu qur-aanka xifdiyo 100% waa la hubaa hadduu 4tan xoogga saaro qofku. Tan ugu horeysa horta qofku inuu ilaahay subxaana wa tacaala weydiisto inuu u fududeeyo xifdiga, waayo xifdiga wax adiga aa iska keensan karta ma ahan. Si kastoo aad u akhriso haddii ilaahay subxaana wa tacaala asaan ku waafajin hal xaba ka qaadi mismahaas. Horta inaan kow aamino ilaahay subxaana wa tacaalana tuugno inuuna waafajiyo, niyad saalaxana ku tuugno. Hortaas waa qodobka ugu horeeyo oo laga rabo qofka xifdinayo qur-aanka in uu la yimaado. Talabaadna waxay tahay wax kasta oo xaaraan ah ama mutashaabihaad ah inaad ka fogaato, waayo haddii aad xaaraan cunto way adag tahay xifdiga qur-aanka inuu kuu fududaado. waayo qur-aanka meesha laga xifdiyo waa qalbiga. Culamadu waxay yidhaahiin baatinulqalbi iyo daahirulqalbi aa kala jiro. Macnaha qalbiga wuxuu kala leeyahay 2 qaybood. Qaybtan hore ee wixii markii loo sheego isla markiiba qabto, iyo qayb dambe oo la yidhaha baatinka oo qalbiga uu galo, qaybta labaad ah oo wixii uu galo oo aad mar ku shubto ayaan ka soo bixin waxaas. Sida magacaaga, si kasto ee adoo hurdaya lagu warsado lagama yaabo haddii lagu yidhaha maxamuud inaad tiraha waxaa la yidhaha mustaf, macquul maahan. Taas waxay gashay baatinkay gashay. Laakiin qaybtan hore ee lambarka koowaad ah ee daahiru qalbiga ah, haddii wax lagu sheego biriga ee aad qur-aanka kariimka ka mid ah lagu baro, waxaa laga yaabaa haddii aad hurdiye soo kacdo lagu weydiiyo inaad tiraha ma ogi. Sababtu waxay tahay qaybtii gadaala uma gudbin, waaga waxay taagan tahay iridda. Inaad gudbiso oo qaybta gadaala geyso ayay ku noqon kartaa aayad kuu joogto ee muggi lagu warsado aad hore ka soo qabato. Tusaale yar aan idin siiyo. Islaamku tusaale wax ku fahmaa iyo dadka intooda badanba. maxaa yeelay ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay meelo badan, wuxuu ku sheegay tusaale iyo mathal. wadaraba allahu mathalan rajulayni daraba allahu mathalan cabdi mamluukan. Yani meelo badan wuxuu ku sheegay in mithaal loo baxsho qofka iyo tusaalo si uu wax u fahmo. faatixada adigoo akhrinayo haddii taleefonkuu soo dhaco oo aad taleefonka messajka aad fiiriso adigoo faatixada akhrinayo, waxaa laga yaabaa inaad faatixada dhammayso adigoon qaldin dhamo, haddana mobile aa ku mashquulsan tahay hadday, ama salaadii aa ku jirtaa, dukaamankaaga aa gadee u haysaa, waxaa adduunyada dhex gashay, salaadina waa ku jirtaa, faatixada aad akhriyayso lagama yaabo inaad gifto. Sababtu waxay tahay waxay degtay qalbiga qaybtii labaad ay degtay. baatinul qalbi qaybtii labaad oo xagaysa ayay degtay. qolka ugu dambeeyo jiifka ayay fadhidaa faatixada. laakiin soo noqo qur-aan caadiga soo qabso, aayad kariimka oo meelaha dhex soo qabso. tusaale ahaan afalam yasiiruu fi lardi fayanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim wakanuu ashadda minhum quwatan wamaa kaana allahu aatiri. afalam yasiiruu aatiri, haddana wamaa kaana allahu aatiri isma qabato. waayo aayaddaas waxaa la yidhaha 3 wowleydii fa maba ku jirto aayaddaas. 3 wowleydii ayaa lagu magacaabaa. fa waa ku jirtaa dabcan, laakiin afalam yasiiruu kama bilaabato. afalam yasiiruu ma ka bilaabato, yani wowbay ka bilaabataa. awalam yasiiruu fi lardi fayanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim wakanuu ashadda minhum quwatan wamaa kaana allahu liyucjizahu min shayin fi samaawaat. yani maskaxdaada way maqan tahay. muga waa qasab inaad inta afalam yasiiruu tiraa haddana wamaa kaana allahu tiraa. muga horta kow inaan horta qalbigayna ou xaadir ahaado oo aan xaaraanta horta ka fogaano, oo mutashaabihaadka qalbiga naga waswaasinaya inaan ka fogaano horta. waa qodobka labaad. qodobka saddexaad iyo weliba kuwa xataa aan xaaraanta ahayn laakiin iska bannaan oo mubaax iska ah, siyaad inaad badan cunto waa iska mubaax oo hadda waajib ma ahan, xaaraanna ma ahan, mubaax waaye. inaad badan cunto waa iska mubaax, inkastoo cibaadada ilahay aad u kaashahayso haddana waxay soo gelee mubaaxa.
okay haddaa muga aad mubaaxi aad u isticmaasho si xadka ka baxsan ayadana qalbigay wasaqaysaa oo mugaa badarka cunayso waa inaad ka cunto si nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam oo wili thulis saddex u qaybi qayb cunimada geli qaybna cabitaanka geli qaybna neefta geli muga waa waxyaalaha oo mubaaxa ah inaadan ku dhegin sida adoo fiirsanayo kale telefishin oo amba akhbaaraadka caalamka la socdo ama aad banooni fiirsaayo inkastoo dadka qaar ba ay dadka yidhaaheen waa lagu gaalooba ay yidhaheen laakiin hadda baabkaas waa baab kale haddii alla ku ron yahay doorasho kalaa ka jirto tv-ga waa damootay waxyaalahaasoo kale oo mubaaxa ah inaadan ku dhegin oo aadan waktigaaga dhan wada siin wakti yaryar fiirsa laakiin waktigaaga dhan ha wada gelinin qodobka saddexaad wuxuu yahay inaad hesho macalin haddii aad qur-aanka hore u taqiinay oo kaa dhumay taas macalin uma baahan taas waxaad u baahan tahay kale inaad kutubkaaga qabsatid aayad uu dul istaagto aayad kadibna aad quraa'dan caadiga ah oo kitaabada akriyo ku jiro qadka aad la socoto aad dhegaysato inaad macalin aado lacag ku bixiso qarash ku bixiso waqti ku bixiso uma baahna dad qur-aanka hore u baratay oo kaa dhumay oo aad kitaabka ka akhrisan karto inkastoo aan u badannahay dhammaanteen inaan kitaabka akhri karno kaas waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad kitaabkaaga soo qabsato niyad saafi ahna la timaado maalin ilaahay keeno hal aayad bis qur-aanku haddii uu yahay 6336 aayadood taqriiban ilaa iyo 6500 aayadoodna xataabta iska dhe taqriiban 6500 oo biri ayaad ku dhammaynaya qur-aanka haddaad maalin kasto hal aayad akhrisato waayo waa taqriiban 6 sano miya ma aqaan wax badan ma ahan wax saas sii badan ma ahan ma kuley ma badna umaleynaa waa haddii la xisaabto laakiin waa inaad maalin walba hal aayad akhrisato oo maalinta aayadeeda aadan dhaafin oo aad xifdiso akhris waxaa waaye xifdisa waaye oo kal faatixa ah oo akhri aysan ahayn marartu laa adrii aysan ahayn marartu laa adrii waa inaad u akhriso sida adoo xifdinayo oo aayadda markaad akhrinayso aayadda meesha ay ku jirto samigeeda iyo walaasheed waa inaad kasoo socdo oo aad tidhaaho haa aayaddan aayadda kaleoo la mataana ah waxay ku jirtaa mahaas tusaale aan ku siiyo waxaad akriya oo kale in aladiina aamanuu waladiina haaduu aad akriye waa 3 midow waxaa waaye in aladiina aamanuu waladiina haaduu wanasaare waaye waa albaqran u fila haddii aana qaldanayn iga raali ahada ana cidirkayga ma ihi xaafid ma ihi midda kalena waa in aladiina aamanuu waladiina haaduu wasaabiuuna wanasaare waa maayida amba oofu tan ugu dambaysana waa in aladiina aamanuu waladiina haaduu wasaabi'iina wanasaare walmajuus mugaad muga ugu horeysa joogto ee aad joogto wanasaare waa inaad og tahay labada kale inay ku jiraan maa'ida iyo naasgaab ama suuratulxajna dada u yaqaanin anigu waxaan wataa luuxiyan wataa raalli ahada naasgaaba aniga la ii soo bara qur-aanka muga waa inaad og tahay meesha aad joogto haddii aad baxdo waa inaad og tahay meesha lagaa jiro mugaad baabuurka wadada ku hayso hayweyga haddii aad baxdo ee aad wadaqalada ku baxdo isla markaas inaad naqato macquul maaha haddii aad markaas naqato waxaad ku dhacee baabuurta kale waa inaad wadada ka wada baxdo ee wadada ugu horeyso ee meeshii lagaa jira aad ku ogtaa kusoo leexato ee hore wadada uga soo dhacdo maahino he muga haddii aad baxdo lagu yidhaha waa inaad og tahay meesha lagaa jiro qodobka ugu dambeeyo ee aan rabo inaan kusoo gebangabeeyo waxay tahay qur-aanka kariimka waa hadalka ilaahay sidaad ogtihiin qofka meesha ugu jecel yahay amba loogu darajayn badan yahay waa luqadda maxaa yeele qofku si kasta oo xamaali u barto oo gacmaha ka shaqeeyo haddii uusan waramayn oo uu shibanan yahay dhagoole yahay qof lama shaqayn karto waxaa qofkan waa dhagoole maxaa jira waxaa laga yaabaa in lagu soo waco lagu yidhaaho baabuurka meeshaas ka wada meeshaas gey tagsiraata tusaale ahaan laakiin maqlimaysa hadalki xataa marka qofka kulama shaqayn karto laakiin haddii aad hadalki taqaano si kasta oo shaqadaada aysan ay u tahay gaabsi qof la fahmi karaa tahay oo qof hadalki yaqaanaa tahay muga walilahi almathalu laclaa ilaahay waxa lala mathala ma jiraan laakiin waxaan ka wadaa hadalka ilaahay waxaa waaye
waxa ugu qaalisan ee aynu haysana maanta inaan aamino hadalka ilaahay inuu yahay. midna ogow haddii aad adigu akri weyso ee aad iska dhaafto macnaheeda ma ahan qur-aanku inuu dhumaayo. ilaahay wuxuu leeyahay inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun. ama akri ama ha akrin amba ka tag adigay kuu daran tahay, adigay kuu daran tahay. waman jaahada fa inamaa yujaahidu linafsih. inaad ad naftaada ku jihaado ee aad ku xifdiso qur-aanka ilaahay adigay waxay ku tahay dan aakhire iyo adduunba. laakiin allah subxaanahu watacaala hal biriqsi yar ugama dhimaysa mulkigiisa iyo awoodiisa. iyo sida adoo dukaan leh oo beriga haddaad 100 qof ku imaan jirtay hal qof beriga kuu timaado waxaa dareemaya waxaa leedahay hal qofaa beriga ii timid wax laygama gadan. dukaankii waxaa laga yaabaa 2 maalin kabacdi inaad xirto. laakiin allah subxaanahu watacaala dukaankiisa ee qur-aankiisa ah haddii aan qofba akrin ee inta muslimka ah ee adduunka ku nool qof akhrisa laga waayo kitaabkiisa waxba mulkigiisa iyo awoodiisa iyo tabartiisa iyo cadamadiisa iyo khayrkiisa iyo wanaagiisa iyo sharaftiisa iyo ikraamkiisa waxba ma ka nusqaaminayaan. maxaa xadiiska waata u ahay dhammaan insi jin hadday kulmaan oo ay macnaha caasinimadeeda ku kulmaan aniga mulkigii waxba ma ka nusqaaminayaan. hadday ay baahirnimadeeda ku kulmaanna aniga mulkigeyga waxba kuma daraayaan. adiga le iska badbaadi naar, adiga qoortaada naar ka badbaadi bes. ilaahi subxaanahu watacaala waxba ugama shirno inaad barato inaada baranin. nuga walaala qur-aankaas aan xooga saarno aan ku dadaalno ilaahayna hana waafajiyo. dadka qaar ayaa laga yaabaa inay u aaminaan qur-aanka inaad wada xifdiso inay qasab tahay. dabcan way fiican tahay oo waxaa la yidhi waatuu xadiiska ahay iqra wartiq ana manzila aayataka. xadiis macnihiis saas inu aan rajaynaa yani akri reer jinaadka waxaa laleeyahay qofka qur-aanka yaqiin waxaa laleeyahay akri darajadaada waxay ku eg tahay aayadda kuugu dambaysay aad akriso. qur-aanka hadduu 6500 oo aayadood uu yahay mathalan jinaduna waxaa waaye 6500 oo jaranjar. muga ninkii 10 aayadood yaqaano jinadii uu ku jiraa dabcan. laakiin ninka oo qur-aanka dhan wada yaqaano isku meel ma joogaan. muga haddii aad rabtid inaad lamid noqoto ambiyaa wa saalixiin, haddii aad rabtid inaad lamid noqoto waa inaad qur-aanka ilaahay xafdiso kuna dhaqanto wixii aad awoodo. fattaqu llaha ma stadactum. wixii aad awoodo oo ilaahay ku waafajiyo oo yani qaladaad way kaa dhacayaan oo bini aadan aanu nahay. waatuu nabigu yiri sal ly wasalama haddiinaan qalad gelaynin abubakarow rabbi subxaanahu watacaala inaa adduunka idinka kaxeeyo ayuu wuxuu keeni lahaay dad qalad gelayo deetana ilaahay macnaha usoo naqanayo kadibna uu ka cafiyo. muga inaan qalad gelayno way muuqataa. asxaabta rasuulkaa la yidhi yani say ahaayeen noloshoodii haddii la akriyo waxaa muuqanayso inay kaftami jireen inay qosli jireen laakiin noloshooda iyo aakhiro way kala baxsaneed. aakhiradooda waxay ku haysteen qalbiga, adduunyadina waxay ku haysteen gacanta. laakiin annaga aakhiradii waxaan ku qabanay gacanta ala dhihi karaa. adduunkana waxaan ku qabanay qalbiga. waayo annaga qalbigeena waxaa ku weyn adduunka markii loo fiiriyo marka ayaga loo damoodo qalbigeena waxaa ku weyn adduunka. hadda jinno labaadna ma jirto. jinnadu waa uun midi uun oo jinno aan u qalanno oo dadkayna aan hadda cusub oo qaar cilmaani haddii doonto aysa kaan jiraan jinno dhexdhexaad ah oo la yidhaha dadkan xoogaa camalkooda eriya jinno dhexdhexaad hala siiyo ma jirto. fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir. laba heywey waayo wadada, midna waxay aadee bakaaraha midna waxay aadee kaaraan. mid saddexaad ma jirto. labadana midna waa naar midna waa janno. ilaahi subxaanahu watacaala inuu ku waafajiyo ku dadaal. nina camalkiisa jinno kuma tago. laakiin waxaa lagaa raba kaliya waxay tahay wixii laguu diray inaad samayso bis kadibna aad ilaahay u dhiibto tira ilaahay anigu intaan aan awoodaa inta kalena ilahu adigu iigu dar. hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wixii aan ka qaldamay nafsi shaytaan ay ka ahaadeen, wixii aan ka saxana falilahi alxamd. macalimiinteena allah gaarsiiyo, macalimiinteena allah ka sawaabiyo, macalimiinteena allah u naxariisto, hooyo aabe iyo dhammaan waalideynta tagayna ilaahay ha u naxariisto. qalbigooda aan dhehe qabrigoodana ilaahay khayr ha ugu shubo.
ilaahayna gadaashooda nama fidneeyo. hada billahi tawfiiq.